kuuriyada waqooyi ayaa sheegtay inay ku guulaysatay tijaabinta 2 gantaal. kuuriyada waqooyi ayaa waxa ay tijaabisay 12 gantaal tan iyo horaantii bishii May kadib markii ay gantaalada tijaabintooda hore faraha uga qaaday. madaxweynaha Mareykanka iyo kan kuuriyada waqooyi Kim Jong Un iyo Trump ayaa waxa ay kulmeen 3 jeer, laakiin wax horumar ahna lagama samaynin baabi'inta hubka nuclearka ee haysato kuuriyada waqooyi. taageerayaasha kooxda ISIS ayaa waxay bilaabeen inay ka barbur mudaharaadaan hogaamiyaasha kooxda, gaar ahaana markii lagu dhawaaqay hogaamiyahooda cusub, asaga oo markaasi baraha bulshada dadka ay ku xiriiraan ay u soo bandhigayeen ammaan ay ku muujinayaan sida ay daacad ugu yihiin ninkaasi la doortay iyo sidoo kaleeto isla guud ahaanba kooxda. ISIS ayaa waxay ku dhawaaqday doorashada Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi inuuna yahayna waxay u doorteen hogaamiyaha cusub kadib markii cod muuqaal ah lasoo dhigay wakaalada wararka ee al-Amcaaq oo iyadu ay wararka kusoo gudbiyaan kooxda. waxaa dhinaca kaleeto lagu sheegay ammaan loo jeediyey calanka jihaadiyiintaasi iyo sidoo kaleeto wadaadadii ka tirsanaaba. waxaa ku dhawaaqista hogaamiyahan cusub ee xaqiijinaysa dhimashada al-Baqdaadi iyo sidoo kaleeto afhayeenkii ururkaasi Abu Xasan al-Muhaajir, waxayna ku macneeyeen ayagoo ka faalloonayay dadka wax ka faallooda arrinkaasi inay tahay taageero cusub oo kooxdu ku doonanayaan wakhtigan. muqdisho waxaa ka bilowday dadaalo xoogan oo loogu gurmanayo dadka Soomaaliyeed ee ay saameeyeen fatahaadaha ka jira qaar ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya, gaar ahaan gobolka Hiiraan. ganacsatada Muqdisho ayaa ku dhawaaqay lacag dhan $640,000 oo ay ka qayb qaadanayaan gurmadka fatahaadaha. gudoomiyaha rugta ganacsiga Maxamuud Cabdikariin Gabayre oo ka qayb galay shir ganacsatada ay uga hadleen arrimaha fatahaada ayaa sheegay in ganacsatada ay diyaar u yihiin in ay qayb weyn ka qaataan gurmadka fatahaadaha si dadka loo badbaadiyo. $640,000 waxay ku jirtaa gacanta guddiga maanta. alxamdulillah, ilaahay ka ajir siiyo inta ku yabooday. dowladda Soomaaliya ayaa dhankeeda shaaca ka qaaday gargaar lacageed oo ay uga qayb qaadanayso gurmadka loo fidinayo dadka ay saameynta ku yeesheen daadadka ka dhashay fatahaada uu sameeyay webiga Shabeelle. wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa sheegay in dowladda ay dadka dhibaataysan ugu deeqday lacag dhan $500,000 taasi oo loogu talagalay in wax loogu qabto dadka ay fatahaaduhu saameeyeen. runtii dadku waxay u baahan yihiin taakulay. dawladdu wixii karaankeeda way geysay. sidoo kale dawladdu waxay abaabushay beesha caalamka oo iyadana gargaar fiican, dawladda Qatar iyo dawladda Turkiga iyo dawlado kale oo badan iyo hay'adaha caalamiga kulligood shaqay ka hayaan. inkasta oo dhib dhacay oo dad dhintay, qaabab kala duwan ay u dhinteen, haddana ilaa hadda waxa gacanta lagu hayaa u gargaaridda dadka loo gargaarayo iyo arrimaha caafimaadka iyo marka ay dhamaato, hadday dhamaato fatahaada in haddana impactiga dawladdu ay u sii samayso mechanism wixii khasaaraha looga hortegayo. dadaalka iyo wax ururinta ka socda meelo badan oo dalka ah, dadka Soomaaliyeed isu xirqaamayaan, dadka walaalahooda ugu gurmanayaan, aad iyo aad baan u amaanaynaa. ololaha tabarucaada ee lagu taageerayo dadka dhibaataysan ka sokow dadka qaar ayaa ku talinaya in loo baahan yahay in xal waara laga gaaro fatahaadaha ka taagan gobolada dalka oo Hiiraan ay ugu horeyso. waa kan Cabdiraxmaan Cusmaan Jimcaale oo wasiir xildhibaanba ka soo noqday dawladii ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya kana mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolka Hiiraan. arrintan wax laga qaban kara waaye, cidda wax ka qaban kartaan waa ciddii maamul ah oo canshuur qaadayso bulshada. maxaan ku yiraahdaa waxba idin qabanayna le ayaa laga rabaa. haddii taas la waayana waxa dadka maxaan ku yiraahdaa wax garadka aqoon-yahanka duubabka intaasaa looga baahan yahay. marka maxaan ku yiraahdaa haday garan waayaan kuwii maamulka ahay lafteeda waxa la rabay bulshada duubabkeeda iyo dhaqankeeda iyo maxaan ku yiraahdaa aqoon-yahankeedu inay maxaan ku yiraahdaa ka fikiraan. marka waa arrin dhanka maamulkana ka dayacan, dhankii kale dad bulshaduna ay maxaan ku yiraahdaa dayaca lafteeda wax ku leedahay. sidoo kale Cawaale Ciimow Cabdi oo wasiir ka soo noqday dawlad goboleedka Hirshabeelle ayaa aaminsan in dhibaatada taagan wax laga qaban kari. sida oo dhan hadda inta qasaaraha intaas la egyahay, intaas oo dhaqaale aan ku baxayso, waxay aad ugu yar tahay inta hal mar lagu xalin karo fatahaaddan dhibaatadu soo noqnoqoto.
because laga yaabo intaas oo milyan ku baxday laga yaabo inay ku xalkeedana lagu sameyn karo wax ka yar 1 milyan oo webiga buuraha ku teedsan magaalada ayaa waadiyaasha ku daro waadiyaashaasna webiga ku daraan sidaas marka magaaladana ay ku harqantaayo dadkii ay dhibaato u gaarsiisaa marka hadii meel lagu jihayn karo dadka qobarada u leh webiyaha arimahooda iyo fatahaadahan iyo loo qabto seminaaro xal waara ay ka keenaan laga yaabo inay arintan dhaamileed wax badan laga qaban lahaa fatahaada webiyada ayaa dhowr jeer ku soo noqnoqday qayb ka mid ah gobolada dalka ka uu sababay musiibo bini'aadanimo dad badan ayaa rumaysan in inta lagu baraarugi lahaa marka uu dibku bilowdo loo baahan yahay in qorshe iyo go'aan midaysan laga qaato sidii wax looga qaban lahaa xaaladda taagan iyo dhibaatada joogtada ah Seen Abubakar Maxamed VOA